gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCD injineer Faysal Cali Waraabe oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay gudaha xarunta dhexe xisbiga UCD uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay muddo kordhinta ay sameeyeen isla markaana ay ku dhawaaqeen xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland maanta isagoona dhamaanba u mahadceliyay xildhibaanadii golaha guurtida Soomaaliland waajibaadkoodii dastuuriga ahaa sida ay ugu gudbiyeen muddo kordhintii doorashooyinka xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee ka dhacday maanta gudaha aqalka golaha guurtida Soomaaliland waa kan injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka UCD oo amurahaasi ka waxaan hambalyeeynaa marka horeysa guurtida horta guurtida waxa loo abuuray gabigeeda waxa loo abuuray ee loo sameeyay guriga aqalkaas golahaas waxa weeye inaanay reerna ku abtirsan xusbina ku abtirsan ay noqoto gole ka madax banaan siyaasadda oo danta uu ka taliya waxa weeye golaha qura wax ay soo gooyeen dad la soo doortay oo baarlamaan ama wakiilaha uu yiraahe iyo dawladba gafuur ku dhufan karta awooddaas leeyahay awooddaas ma isticmaali jirin reereen noqdeen tanayseerbaan noqdeen asxaabay galeen laakiin maanta waxay waajibkoodii loo sameeyay ay horta maanta doorteen waxaan leenahay hambaliyo geesta kale injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka UCD oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay kala diridda xildhibaanada golayaasha deegaanka isagoona shaaciyay inay ka degayaan muddo xileedkooda marka uu dhamaado xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo waliba maayiradu isla markaasina la samayn doonaan xisbiyada qaranka iyo waliba xukuumaddu mudanayaal ku meel gaar ah oo sii haya xilalkii golayaasha deegaanka komishiga hala kala diro arrin weyn mahmuudin ahayd 7 qof baa la diidan yahay ma ahayn arrin masiirka Soomaaliland lagu mijaxabanay anigu ilaa 2011kii 2002 ayaan doodaha kordhiska soo maray oo marka cigaal baa joogay ilaa naxariistay ilaa 2009kii markaan 6 point soo saarnay intaan ku jirnay soo kordhiska maalin door ka xumeed ma jirin laano markii hore intii hore dhan isku qalbi baan ahayn waxaan nagu jirin influence kale ana isjiidanay laakiin doorkan influence baan nagu jiray shay anigu intan dalkan ay wax badan subhanahu wa ta'ala oo aan hindisay ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala taydi ka dhigay waxa igu adkaa intan hindisa keenay hindisii ciraan kaga dhiginay gudoomiyaha baarlamaanka iyo tan maanta 5 bilood baan ka shaqeynay arintaas inay suurto gasho doorashaas inala dhaafin 2019 sidoo kale waxa uu baaq u diray gudoomiyaha xisbiga mucaaridka UCD injineer Faysal Cali Waraabe ajabhada uu hogaamiye Korneer Caare isagoona u sheegay inay xukuumadda iyo waliba xisbiyada qaranka gogol nabadeed u fidiyeen isla markaana ay ugu baaqayeen inuu u soo noqdo dalkiisa iyo dadkiisaba injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka UCD oo haddana amurahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waa ogtiin masaajidda lama tagi karo yaani ummadan oo isxambaarsan bay nagu dhaxno waxay noqonay joonyad magaalada koosara timira oo afka ka daboolay Soomaaliland waxa leenahay madaxweynaha waxay wadankan wuxuu u baahan yahay reform wadankan wuxuu u baahan yahay midnimo wuxuu horumar u baahan yahay yo tuma baahna ku jiqsina loo baahna ku wax iska cilina loo baahna waxa wada qabsi loo baahan yahay waa inaynu gacanta u fidinaa caaro u fidinaa qof qori inaga maqnaada maaha waa inuu dadkeena mideeyna haddii inagu qaybsanahay waxba iska cilin mayno waxa leenahay ninka caare caroodana kiiskaaga waa la geliyaa dadka ku soo noqo xaalad jabad lagu sameeyaa ma jirto Soomaaliland nabad buu haysata SN waxay ka sameeyay cadaadis nafil caarid bahed waxa maanta ninka guriis jooga caare u tagay ma jira cidna u tagay mayso yani cid laga yaamo ma leena yani cid laga yaamana midna baan ku baaqin hadaan nahay cud wadan waxa leena insha Allah ka soo qayb gala waan la wadayna wada hadalkii in inagu wada socona doorasho wanaagsan sameeysano oo adduunka inala macaamilo markan talaabo dib hore u qaadan laba dib u qaadina waxaan leeyahay insha Allah in hore loo socdo way horeynu soconay Soomaali Cabdi Axmed Karin leh Kalsan TV Hargeysa.